Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan aqyaartaydu maan salamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay su-aal na soo weydiiyey ardayda kamid a yoolax wuxuu yidhi waxaan download ku sameeyey windowyada utorantiga waxaa ii soo baxay in liiga xiray websitena waa laga xanibay ayaa lagu qoray koley wuxuu joogaa dalka soomaaliya marka websiteka waa laga xiray marka sidee websitadaas kale waxaa laga yaabaa in maadaama programme free bixinayaan saas darteed wadamada waa qaarkood waa laga wada xiray marka sidee u heli kartaa website kastoo lagaa xiray si sahla inaad u gashid adoo isticmaalaysid Firefox. Welcome to my YouTube channel. marka waxaad sameynaysaa Firefox isaga soo fur kadib waxaad tegaysaa tool kadibna add ons ayaad tegaysaa kadib meesha searchiga waxaad ku qoraysaa unknown kadib enter ayaa leedahay kadib sidan ayuu kugu soo baxaa kan hore ayaad install sameynaysaa wuxuu sameynayaa inuu IP addresskaaga kaa bedelo computerkaagana wax dhib u keenin IP addresskaaga ayuu bedelaa wuxuu ku bedelaa IP address kale sidaas darteed ana IP addresska ujeedaa wuxuu bedelay IP address kale marka website-kii aadatay ayaad booqanaysaa si toos haddii aan galno google hadeer aan searching ku sameyno aan dhahno my IP address sababta ana wadankeyga website lagama xirin marka my IP marka waxaan fiirinaa inuu IP-ga bedelayo sababta waxa ugu muhiimsan tahay waxa la xiro waa IP addresska wasna IP addresskan ayaan gelinaa waxaa ujeedaa IP addresskan wadan kale waaye waa UK waa ujeedaa UK inuu yahay waa mid aan la aqoonin wadankan waa ujeedaa IP address UK inuu ku yaalo marka website-ki aragtay si toos ayaad u booqanaysaa utorantigana markaa gashid si toos ayaad u geli kartaa si toosana ayaad soo dhageysan kartaa marka insha Allah bidaan kadib su-aashan way sahlan tahay sababta barnaamijka wuxuu kuu sameynayaa in IP addresskaaga wadan kale ka dhigo saasta website-ka kuu furmo waxaa rabtay kasoo download gareysatid inta badan yoolax keliya maahan waxay ku dhacday dhalinyaro badan oo Yurubta ku nool hadda wadamo badan inaan tilmaamo rabo laakiin wadamo badan Yurub kaga nool oo casharo badan YouTube-ka Axmed Shafii ama ifham la socdo rabteen barnaamijyo inay ka degsadaan utorantiga saas darteed waa laga xiray wadamadooda laakiin linkiga markaan u diray wuu u shaqeynaa marka linkiga message ahaan ugu diray si toos ayuu usoo degsan karaa laakiin website ahaan ma booqan karaan marka sidan ayaa toos u booqan kartaa IP addresska lagu bedeli kartaa marka insha Allah biidna kariim inaad ka faa'iidaysan doonto ayaan rajeynayaa wixii aqoontaadana fadlan walaalka kale ku caawi insha Allah biidna kariim khayr iyo caafimaad ayaan rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh jazaakum allahu khayran